gabaygan waxaa tiriyay Mustafa Maxamed Biixi Cabdi oo ku dhashay magaalada Oodweyne 1888. waa taariikh xusid mudan. wuxuu dhashay jimcihii uu Burco la galay jimcihii ka dambeeyay. waa dhalinyarada waxna ku baratay kuna kortay wadanka waxaa ku soo socda isbedelo waaweyn oo kaga imanaya xagga dibadda, siyaasadda dibadda. wuxuu la hadlayaa axsaabta la dooranaya oo ku mashquulay maalka la urursado oo keliya. sidoo kale wuxuu la hadlayaa shacabka inaanay dooran qof aanay ka go'nayn midnimada dalku. waana kan gabaygii, waana anigu idinku soo gaadhsiinayo luuqda, waxaana tiriyey Mustafa Maxamed Biixi. golaaftan yacay markii laysu godab qaatay, saddex bay gelbinayaan mar kale oo garoon yimiye, guudka magaca way uga egyihiin geesi qaaliye guntay xaaja tolataa ma arag garashadiisiiye, ciridkaa gamuuranimo sida gows la tiriyaaye, ceel goofa nin dhaasay yidhi waa garaadli'iye, taladaad guddoonkeeda tahay guurta marinaysa, adigoon gorfayn oon rogrogin lama go'aan qaato, guubaabo beena bay wadaan goriyaa leyle, ha galaafan ummadee ka joog, gacanta ha u fiiqin, ha gargaarin berri toole kii guran lahaa maalka, hana ganin gantaal aad ku guban guriga aad taallo, hadhow gocosha guul kuma tartee galabta faalleeya, caqligaagu yuu gurin mar kale laysma gowracaye, haddii kale go'doonkaa ku jira laydin gelinayo. halgankii loo galay dalkani weli lama hayo ictiraafkiisii, waxaan ku gadaaman maanta dareemo aad iyo aad looga dharagsan yahay oo khatartooda.